munaasabadani oo ahayd mid ballaadhan oo hanaankeeda qabanqaabo si hersare loo soo agaasimay oo ay badiba ka soo qayb galeen labeynta Soomaaliland. munaasabadani oo duleedeedu ahayd mid lagu weyneynayay looguna dabaaldegayay arday gaadhay 300 oo arday oo ka qalin jabiyay culumta kala duwan ay bixiso jaamacadda Golis fariceeda magaalada Burco. munaasabadani oo kulmisay ardaydii ka qalin jabinaysay oo wajiyadoodu ka muuqatay dareen farxadeed isla markaana ku labisnaa dharka qalin jabinta ayaa waxa kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka ka degmada, waalidiin, culamaa u diin, aqoon-yahano, haween iyo marti sharaf kale. ugu horeyntiina waxa munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis fariceeda Burco Professor Cabdixakiin iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadda Golis Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka warbixiyay ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda Golis. sidaa daraadeed jaamacadda Golis runtii maanta mudane madaxweyne waxa halkan u fadhinaa 9 kuliyadood oo kala duwan oo ka qalin jabinaya jaamacadda Golis Burco. saddexdaas sanadoodna waxaan filayaa inaan mudane madaxweyne aan si wanaagsan u gaari doono. jaamacadda Golis waxay ka mid tahay jaamacadaha aan iska furanayn aqalun iska furan oo aan intay filayar karaystaan odhan jaamacad baanu nahay dhagaysa tacliinta sayniska iyo tiknoolajiyada medicinka waa la ogyahay 3 jaamacadood bay King's College ka qaaday. geesta kale waxaa munaasabadani ka hadlay barasabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire, maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraade iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada oo bogaadiyay ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda Golis fariceeda Burco, isla markaana kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan waxbarashadooda. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii naftooda anfaca oo waalidkooda anfaca oo dalkooda anfaca oo diintoodana aan wax u dhimin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinka yeelo. shacabkaa laydin geliyey wax fududeeda la noqon. ardaygu ma aha markuu qalin jabiyo jaamacad ka qalin jabiyo markaba shaqo helo. tacliintu wax dhamaada maaha, waad wadan kartaa. shadii albaabkeedii u baad imika ka gashay waa furayaashii digriiga hore, waa furayaashii muxuu ahaayay waxbarashada la dugsi hoose ilaa jaamacadda baranaysa waalid baa kugu tabcayay, ehelaa kugu tabcaysay, waxaad u baahan wax xilligii aad celin lahayd. waxaynu nahay ummad soo koraysa, qarankeenna waynu ognahay dhaqaalihiisa iyo hantidiisa. waxaynu ku dadaalaynaa oo aynu Ilaahay tala saaranaynaa in dalkeennu barwaaqo u gaadho. in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku anfaco adduunyo waxa aad u barateen iyo aakhiro wixii aad u barateen.